بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. halkan maanta aan iskugu imaanay waxaa inoo sharaf weyn ah inaan iskugu imaanay howl muhiim ah, howl toleed, howl dad reer ah ay leeyihiin. waa beesha cawlahan oo aan ka dhashay ayaa maanta halkan arrin weyn oo khaas ayaga ku ah maartay kusoo muuseen oo ah in kees maxkamad oo muddo dheer hadda ilaa taqriiban sanad socday ayaa maanta ilaahay fadligiis aan kusoo gabagabaynay in ninka walaalkeen ah oo petitionka waday oo aad garanaysiin. petitionka wuxuu khaas ku ahaa doorashadii dowga hore ka dhacday Lagdera sub county ama constituency. marka walaalkeen Cabdiqani Zaytuun oo ahaa the petitioner ama arrintaas ayada ka daba tagay oo maxkamadda la aaday ayaa kolka oo ay soo martay ilaa iyo high courtkii, ilaa iyo court of appealkii oo hadda ay ku socoto supremeka ayaa kolka maanta tolkii maartay iyo anaga aan garnay in lasoo afjaro. marka waxaa ilaahay fadligii hawshan ay ku dhamaatay in ninka walaalkeen ahaa uu reerkii u qabsoomay oo maartay uu shuruud la'aan uu maartay uu dhahay arrinta ayada maadaama ay ila qabsateen waan ka tanaasulayaa. marka sidaasaan maanta farxaddaas iyo odayaasha halkan ka muuqdaan ay iskugu imaadeen oo muxuu ahaa arrintaas ayada aan kusoo gabagabaynay iyadoo ninka walaalka ahna maartay uu ka fadilay inuu ducaa uu ka qaato reerka iyo tolka oo marka arrintii uusan sii wadin. intaasa maanta miidiyagan ay ku saabsan tahay. waad mahadsantiin. siiyey marka labaad waxaa aad iyo aad u mahadsan governaheena Garissa, Governor Nadiif Jaamac, oo professionals duqeydeena mutacalimiinta ah uu hogaaminahay chairmanka uu yahay engineer Cabdirasaaq. waxaa mahad dheeri lah odayaasheena qiimaha badan, sagaalayaasha iyo inta la shaqeyso. aad iyo aad baad mahadsantiin. runtii waxaa weeyaan arrintan waa arrin in badan soo socotay, waa arrin xanuun badan leh, waa arrin mataqaanaa tanaasulaadeeda ay mataqaanaa aad iyo aad u qareer tahay. wax walba oon xumbaarsaneen, wax walba oo aniga taageeradaydii aan qabnay waxaan maanta aan rarka iskaga dhignay, aan u laqnay anagoona eegayin mataqaanaa qabkeenna iyo kibirkeenna iyo wixii aan goyn karno. codsigii governaha, professionalska iyo duqeyda ay la imaadeen ayaa wixii oo dhanba mataqaanaa ka hortagtay. tii baan isku dhiibnay, sidaan ognahay dhaqan baan leenahay, tii baan ka gudbi waynay. waxaad ogaataan arrinta ayada ah maanta way naga dhammaatay. waxaan ugu duceynaynaa ninkii xilka loo daayey ee tolkii u garteen inaan asagana mataqaanaa uu ku fashilmin oo ilaahay mataqaanaa la garab galo. waxbaan uma qabno, inta aan cafin karnana waan iscafinay. marka aad iyo aad baad u mahadsanta governor once again, the chairman and his lead, duqeydeena sharafta la sagaalayaasha. maanta oo sabti 30 September 2023 waxaan iskugu imaanay annagoo tol ah inaan ka tashanno arrintii petitionkii la geeyey oo uu geeyey walaalkeen Cabdiqani Ibrahim Zaytuun oo ku saabsaneed kursiga Lagdera. waxaan rabaa inaan mahad u celiyo arrintan uu hogaaminayay governaha oo Zaytuunna haddee uu arrintii ka soo noqday oo petitionkii uu soo celiyey. aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay, asagoo weliba ilaalinayo midnimadii iyo wadajirkii tolka. aad iyo aad baad ugu mahadsanta. qadihii Supreme Court-ka oo Cabdiqani uu ku faalgareeyay maanta aniga la wareegay. ilaahay ha barakeeyo. hawsha waa naga dhamaatay. anigu ugu soo wareejiyey oo asagoo caddaynaya in macnaha hawsha aysan sii soconaynin. marka waa kuwaas warqadihii ayaga ahaa. I can see the petition very very clearly. marka waad mahadsantahay Mheshimiwa, thank you very much. waxaan rabay odayaasha nin ka mid ah oo mathalayo reerka uu ka dhashay Cabdiqani, Rashiid Gaarane, inuu asagana hal iyo laba uu kusoo gabagabay arrintan ayto. soo dhawaashay. الحمد لله رب العالمين. magacaygu waxa la yiraahdaa Rashiid Gaarane Daahir.
ilaaha mahadleh waxaan ku faraxsannahay arrintan maanta meeshan ka dhacday uu noo hogaaminayo gafanaheena Maxmuud Nadiif Jaamac Aadan Deerow ku saabsan petitionkii ka taagnaa Lagdheera ilaa Supreme Court socday labada wiil ee walaalaha ahaa ee Lagdheera isku haysteen gafanaha uu maanta howl badan iyo juhdi badan uu ku bixiyay wuxuu soo dhiraan dhireba soo dhibaato badan la maray maanta gacantiisa ay soo gasheen oo aad arkayseen waraaqii inay gacantiisa ku jiraan haddaan nahay beeshii uu ka dhashay Cabdiqani Ibrahim Saytuun markuu noo imaaday gafanaha oo walaalnimo iyo tolnimo iyo si qurux badan intuu noogu imaaday uu yiri tolkayo arrintan waa inala haystaa waan sii daynay arrinta ayada ahayd ilaa wiilka anaga petitionka geeyay Cabdiqani Ibrahim Saytuun uu sii daayay gacanta tolkaan ku soo celinay gacanta gafanahan ku soo celinay gacantii professionalka awlahan ee sagaalka dab ka koobnaa ee joogay meesha la yiraahdo Nairobi dhamaanteen waan isku wada imaanay aad iyo aad baad u mahadsantiin tolkeena oo arrinta waa fiyoobi sidaasaan ku fiyownahay sidaasaan xilli ku nahay waal iscafiyay tolka gacmo is haystaa wax dhibaato jirtana ma jirto aad iyo aad baad u mahadsantiin ma sha Allah maanta waa maalin aad u qiimo badan oo maalin aad annaga xagganaga qiimo sareysa ka joogto waxaan mahad u celinayaa governaga iyo professionalska iyo odayaasha sagaalayowga cawlihan iyo ilaa xataa ma aragtay madaxda idilbo aan cawlihan aan waxba kala sheeg lahayn arrin aad u culus oo dabin soo jiitamaysay ayaa maanta naga dhamaatay juhdi fara badanna la geliyay oo cawlihan idilbo iskugu tagay annaga waajibkana faran waa mahad ilaahay aan u celino dabadeedna aan u celin hayno governaga annaga iyo professionalska annaga iyo odayaasha annaga sagaalayaag waxaan mahad kaloo khaas u celin hayaa ninka la yiraahdo Cabdiqani Saytuun oo ninkii kayska iska lahaa iyo beesh reerkii uu ka dhashay ee ayagana ogolaadeen talada governaga iyo aqoon-yahanka annaga iyo sagaalayowga marka Cabdiqaniyow insha Allah guul baan kugu ognahay adigana nin wali madax baad noo tahay nin madax cawlihan abaat iskasto ay habooneed bas ay fiicneed inaanan intan dhibka uusan gaarin oo ma aragtay inta rafaadka hadda iyo dhibka la maray ay aad u fara badan tahay laakiin hasa ahaatee muhiimadda waa meesha wax ku dhamaaday aakhir maxay ahayd unba muhiim maanta ilaahay baa mahad iskale way naga dhamaatay arrintii inta arta soo jiitamaysay walaalkanagana governaga iyo duqeydana kullina mahad baan u celinayna